الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحدوني إن هذا الكوبان كير هذا كنتي إن كستونة عليه هبدأ كهبلو جواب تيجي جواب لاقيه حفل يا صاحب كي هالدور ختام حرسيو كترسن حسب جودنا أنا حقيقة عدالة شال الضوء بالعرب ورسوا ما لا نفري ورنتي وبهانين وحلقة هذا إن واحد ربعين أفرق وضوء كم إذا نحور كشالي هذا الكيس عندو تجسده runtii barxad waa mid kamid ah haldoorka dhalinyarada Soomaaliland ixtiraamkiisu mudan yahay saaxiibna waa nasi gaarano laakiin wixii uu ka yiri shalay toole xisbiga wadani ayaa mudan in kelmadii laba laga yiraahdo marka ugu horeysa wuxuu ka hadlay banaanbaxa London ka dhacaya banaanbaxa London ka dhacaya sidaynu ognahay ee shacabku la socdaan ee social media lagala socdo waxa dadkii ka hadlayay waxay ahaayeen dad xisbiga wadani ka tirsan ee abaabulay dad xisbiga wadani ka tirsan oo min barhaan uga diiwaan gashan ayay ahaayeen waxay yiraahdeen waa dareen shacab qurbaha kama bilaamee dalka gudihiisu ka bilaamaa waxay yiraahdeen haddaan laba arrimood oo isdhex yaallay baa jiro waxay yiraahdeen mar kasta ku celceliyaan dawladdu way fashilantay waa qodob iyo haddaan banaanbax doonayno wasaaradda arrimaha gudaha ayaan ka codsanaynaayoon ka dalbanayna oo haddaan dawladdu jirno fashil jiro wasaaradda arrimaha gudaha xagee jiraysa laga dalbanayo banaanbax wax leeyahay waynu sugnahayo dadka aragti baa lagu dhaqaajiyaa oo ay ku banaanbaxaan oo dibadda lagu soo joojiyaa aragtidii wadani uu lumiyay man hayo ilaa maanta oo cid dadku haday dareen shacabo u gaaro iyagoo sidii kii ka dhacay wadamada carabta uu dhacayo kaasi shacabku gaaru yahay xisbiga wadan shaqo kuma leh mana abaabuli karo taas waa qodobka labaad shalay xisbiga wadan war ka soo baxay wuxuu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro golaha wakiilada gudoomiye kii muu ogeyn ajandaha uu madaxweynuhu ugu yeeray labada gole maalintii loo balansaraa ansixinta ee saldhigii military oo Ciro haduuna ogeyn muu gudoomiyihii baarlamaanka ahayn haduuna isagu ogaan waayo ujeedada kalfadhiga uu madaxweynuhu iskugu yeeray yuu ahaa cid ogaan leeyahay cid ogeyd Ciro uu ogaa habeennimadii ku horeysay maalintan uu madaxweynuhu iskugu yeeray golaha wakiilada habeennimadii saxaafadda goobjoog beekeeda gurigiisa ku qabtay Ciro uu hadlo wuxuu yiri beritoona shacabka waxaan u sheegayaa in la ansixinayo la jiirsiinayo arrintiisa saldhigga military shalayna hadalkoogu waxa ku jirtay waa la khiyaamay hadaba waxa la Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi hadii lagu khiyaamaynayo golihii wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhexdeeda aqalkii baarlamaanka madaxtooyada ka soo horjeeday sidee loogu aamini karaa qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland cadawga badan leh qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland cadawga badan habeen iyo maalin lagu horjoogo sidee loogu aamini karaa madaxweyne uu noqon karo ninka inta lagu khiyaamay taana iyaga jawaabteeda laga sugayaa qodob labaadna waxa ka oranaya waxa bariyahan bas saxaafadda ku bandoodo lagu celcelinayay wasiirka wasaaradda warfaafintu dharaartiina xaggaas uu joogaa habeenkiina xaggan uu joogaa xarun halkan ay sheegayaan habeenkii cadaani madama meel loo hasaawo tagaadii annagu cadaani waxa ku ognay wasiirkii warfaafinta ee xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo waxaanu ku ognay sargaal ka tirsan xisbiga kulmiye oo foolaadkiisa kamid ah maalin iyo habeen koofiyada weyne hareeraha ballaaran iyo iskaafka xisbiga kulmiye ku labisan oo codkiisana ku hadla waxa leenahay wararkaas uu hebel yimaada sidii intii quraanka loo dhigay inanba waxa la sheekh baa quraan u dhigi jiro deetana habeennimadii uu sheekhay hooyada armalaaw yar hasaawtay inantii baa diyar aragtay aroortii markay madrasadii timid dabeetani sheekhow waxaad fashay way faataku markaasuu sheekhi ku yiri sheekh fur shaydaanta inanteeda sheeg lagu moodane meeshu waa shay minas waajikum waradaad waxaad hoos ogtiin ay jiraanna ceebeed ku sheegiisu haday tu xisbinimada ku saabsan tahayna madaxda laguma dhaleeceeyay habeenkiina halkana joogta dhaartiina halkana joogta daliilkii iyo burhaantiina keena cadeynteeda keenada shacbiga reer Soomaaliland cadeyn buu hayaa maalin iyo habeen shal u dambeysay ku cadaan ku hadlay afka xisbiga kulmiye afka xukuumadda ee cadeyntaadu haysan taana keena leh mid labaadna taafraad aan ku soo gabagabeynaya waxa weeye marnaba xisbiga wadani oo uu gudoomiye Ciro golaha wakiilada fadhiyo shacbigu ka aqbali maayo intuu golaha wakiilada uu fadhiyo shalay toole isaga asixiyay DP wel duuduub ka asixiyay Saciid Cilmi Rooble intuu gurigiisa ugu tago waa ka soo horjeeday waana qadiyadii Saciid iyo isagoo isku dhaceen ee uu Saciid xisbiga ku weerari jiray wadani waa ka soo horjeeday intuu waaroodnimadiina uu isagu kal fadhigiisa gudoomiyay oo la asixiyay ninkii sidaas sameeyay maalintii dhawey toole
وكو علني ما دود بس حفظه شيء والعرة وحديدة يسدو ديده ولا يقامنا عرة وانك سيدي دي السنضات طاهر رياله labada kun shantii maalintii la doortay ciribta u saaray mucaaradnimadu u saaray kaga tuuray golaha wakiilada dad badan oo reer Soomaaliland way og yihiin dawladda iyo xukuumadda daahir reyaal hogaaminayay xisbigoodu halkay ka dhaceen waxa ahayd guriga wakiilada ciramaha najlas way noognahay ciro marka uu diidanaa arintii hamaha ana joogay maalinta marka shaxda la dhigay shaxda u dhigay iyo tactics ku dhigay watii de la ogaade sidii ay u meel martay ee ay la gaadhay inuu dagaal ku galo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillah marka waxa la dadka masaakiinta ay golaha xisbiga wadana ka soo horjeeda aaminsan in maxaa la dhahay heshiiska dekada berbera waa been waa laba gardaaq noqotay gadeedii hasha labada geed jecel hadba geeso carartay laba gabi dhexdood waraabuu ku gowracay kolna xaqana habeenkii la jooga haday cidi habeenkii xaqan joogto dhaartiin xaqan joogto xisbiga wadana bay ugu badan tahay taasi waa ognahay markaanu joognayna waa noognay ragii habeenkiina xukuumadda iyo xafiisyada dawladda xisbi mucaarada xafiisyada dawladda wareegaysta ma jirto aniga bariga dhow toole 2 sanadood baan xisbiga wadani ku jiro xafiis dawladeed maan gelin kay ugu dhow xigtada naaqilkiisa maan gelin wallahi ilaa intaan wadani ka soo baxay maalin kasta igna xafiisyada dawladda taagay marka waxa leeyahay dib ha isku noqdaan oo waxa weeyaan dadka beenta loo sheegayo been kursi laguma gaadho kursi waxa lagu gaadhaa tii Axmed Siiraayo oo kursiga ku gaadhay ee uu golaha wakiilada gurigiisa ka hagay ee uu golaha guurtida gurigiisa ka hagay muddo kordhintii loo sameeyay daahir reyaale waxay ku baxsatay bariga uu Axmed Siiraayo mucaaradka ahaa tirishan qof ka yar arwa kaas wadan haduu mucaarad iyo xildhibaan ku haysto shalay buu nalaha muddo kordhin baa diidanahay haddana mar labaad muddo kordhin bay dalbanayaan oo dawladdan adaleecaynaysan sharciyadan iyo xasaanadan ay ku gashay heshiiskan yaasi hadaa idan idinku 6 bilood soo jeedinteeda yeelan oo xisbiga xaakimkiisa kaga soo horjeeday awood sharci ku awood sharci iyo time ay hawsha iyo awoodda sharciye maartay saldhiga ay ku gashay ma yeelatay dad marka dadku idin ka siisan maayo taasi dib isku noqdaan la xisbiga aad iyo aad bay saxaafadu ma santahay